duniya maxamed faarax iyo haweeye xirsi faarax oo ah laba hablood oo sheegtay inay leeyihiin milkiyada guri ku yaala nawaaxiga xeebta liida degmada cabdilcasiis ee muqdisho isla markaana uu ku haysto sida ay sheegeen xaashi bulxan ayaa maanta warbaahinta u soo bandhigay dukumiintiyo ay ku cadeynayaan lahaanshiyaha dhulkooda labadan gabdhood ayaa sheegay in sanadii 2014 ay gurigan ka iibsadeen cabdirasaaq xaaji cali saalax isla markaana ay haystaan waraaqadihii naqshadaha guriga iyo dukumiintiyadii guriga ilaa sanadihii 60meeyadii haddana uu gurigooda awood ugu sheeganayo xaashi bulxan sida ay sheegeen haweeye xirsi faarax ayaa ka waramaysa dacwadihii uu gurigan soo maray wuxuu sameeyay xaashi bulxan qoray iyo handaraad kadib waxaan isla tagnay degmada cabdicasiis waxay noo gudbiday guddiga khilaafaadka 4 bilood kadib xukun ay soo saartay ay u dirayso duqa magaalada waraaqdii xukunka ahayd oo ay guddiga khilaafaadka soo saareen waatana duqa magaalada wuxuu soo qoray fulin oo leeyahay gabdhahaas ha looga bixiyo gacantoodana ha lagu wareejiyo waatana tii fulinta ahaydna wuxuu sameeyay ninka la yiraahdo xaashi bulxan ra'iisul wasaare iyo dawladda qaybo kamida ayaa arintii faragelin ku soo sameeyay ilka xanafa wuxuu soo saaray waraaq hor istaaga oo uu leeyahay maxay haytay lagama bixi karo waxaan isla tagnay maxkamadda sare ayadoo dawladda hoosana ay u doodayaan niman garyaqaanka guud iyo qolooyin kale oo kaabayaal ah kadibna waxay sameeyeen 4 bilood kadib ilka xanaf faysashada 4 bilood kadib oo haystay wuxuu soo saaray asagoo dhahaa milkiyad ma faragashanaya dulucda dacwadana ma galayo qofkii doonaahu siday doonaan ha yeeleen laakiin waxaan jibiyay amarkii muungaab dhinaca kale duniya maxamed faarax ayaa sheegtay in bulxan waqtigan uusan haysan dukumiintiyada lahaanshiyaha gurigaasi sida awgeedna dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka codsanayso in gurigooda lagu soo wareejiyo hadduu haysto caalamka ogaada islaamka ogaada ummadda Soomaaliyeed ay ogaada hadduu haysto hala yimaado meel alla meesha doonana dukumiintigeena waa kaasaan wax ku leenahay hay'adda dawladda waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka in ay dhulkeena nagu wareejiso xidiga garaado aqoon intaba uu lagu handadayaa cabdinaasir maxamed cali Home Cable TV magaalada Muqdisho.